مدحين بناني مانتا 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 ومالي وين مانتا 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 مدحين بناني مانتا 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 ومالي وين مانتا 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 مدحين بناني مانتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamij aad u xiiso badan. barnaamijkaas oo aynu u bixinayaa tahay adigu. runtii barnaamijkan ayaa waxa uu ka hadli doonaa taariikhda Soomaalida barbilow ilaa iyo bardhamaad. Soomaalidu waxay leedahay taariikh aad u fac weyn. si haddaba aynu fahanno taariikhda Soomaalida, asal ahaan xaggee Soomaalidu ka soo jeedaa, yay isjir wadaag yihiin, xaggee ka keeneen dhaqanka ay wataan, xaggee Soomaalida iyo Carabta iska soo galaan, yaa bixiyay magaca Soomaali, maxaase loo bixiyay, yaase keenay geeska Afrika. runtii qodobada tan aan kaga soo hadlay oo dhan ayaa waxay u baahan yihiin fasiraad dheeri ah si qof kasta oo Soomaali ah u fahmo asal ahaan barta uu ka yimi, cidda ay isir wadaag yihiin, iyo marxaladihii kala duwan ee Soomaalidu soo martay. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar, mahadsanid. Hello, hello, sangasi wate. Sangasi wate. Hello, sulo shansi. Salezo. Sulo shansi. Allah, what the heck? haddaba si aynu u ogaano macluumaadkan oo dhan waa inaynu dib ugu laabanaa 1500 ee ka horeeyay taariikhda miilaadiga ee aynu hadda ku jirno. haddii aynu ka soo bilowno Nabi Nuux oo ahaa aabihii labaad ee ummadda waqti xaadirkan ku nool dunida. Nabi Nuux naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waa tii qoomkiisii Ilaahay halaagay kadib markii uu u bariyay in aanu midna dunida tan kaga tegin kuwii caasiyay kitaabkiisa kana soo horjeestay. Nabi Nuux ayaa qoomkiisii lagu halaagay biyahaasoo cirkana ka yimid dhulkana ka soo baxay si ay ugu halaagsamaan. Nabi Nuux naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo 3 wiil uu dhalay iyo qoom yar oo rumeeyay ayaa Ilaahay ka badbaadiyay biyihii. Nabi Nuux naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu dhalay 3 wiil, 3 wiil oo lagu kala magacaabo Sam iyo Ham iyo Jaafet. waana 3 wiil ee bini'aadamku ay ka kala farcameen, iyadoo 3 wiil qoomkii yaraa oo Ilaahay rumeeyay ay ku kala abtirsadeen. balse haddii aynu soo qaadano Ham oo ahaa waaga nin madow, Ham waxa uu dhalay 4 wiil. 4 wiilna waxa la kala oran jiray Kush, oo dhammaan la isku dhaho dadka dega bariga Afrika laga soo bilaabo ilaa Ethiopia, Soomaaliya iyo dhammaan wadamada tan ku abtirsada bariga Ethiopia, bariga East Africa la isku dhaho bariga Afrika ayaa uu Kush ku farcamay. Misrium oo dhalay isaguna dadka ka soo jeeda Masar ama faraacinta Masaarida. But isaguna ay ka farcantay boqortooyadii Liibiya oo iyaduna deganeed waqooyiga Afrika. Kaynaan oo dhalay isaguna dadka reer Falastiiniyo iyo dadka reer Bani Israa'iil. Kush haddaba aad u farcamay. Kush waxa uu dhalay wiilal aad u badan, waxaana ka mid ahaa Nimrod oo ahaa boqor oo ahaa in Kush waxa uu ahaa nin aad u kibir badan. kutubta iyo diimuhu aad bay u hadleen ninka. sidoo kale waxaa ka mid ahaa ilmo Kush, wiil la dhaho Seba, Xafiila iyo kuwo kale aad u badan. si haddaba aynu helno caddaynta dadka Soomaalida iyo qabiilada la degan meesha ay ka yimaadeen asalkooda, ayaa waxaynu ku soo qaadanaynaa 3 qodob ilaa 4 qodob. baaritaanka taariikhda iyo wixii ay ka tageen qoomamkii hore, ahramaha ku yaala dalka Ethiopia, Suudaan iyo dalka Masar,
baaritaanka luqadda Soomaaliga ama raaca luqadda Soomaaliga meesha ay ka timid iyo luqadaha la walaalaha ah. dhiigga cidaynu wadaagno iyo cidaynu ku dhow haddaynu Soomaali nahay. Si haddaba aynu cadeymahaas oo dhan u helno waa inaynu ku laabanaa qarumihii hore ee soo jireenka ahaa iyo xilliga ay soo bilowdeen iyo wixii ay taariikh ka tageen intaba. boqortooyadii reer Kuush ee ku taalay waddanka Suudaan xaruntooduna ahayd Keema, taasoo ku taalay webiga Niil, iyo boqortooyadii faraacinta Masaarida ayaa waxa ay ahaayeen laba boqortooyo oo deris ah isku waqtina bilowday. faraacinta markaan leenahay waa labadii boqortooyo oo 5,000 oo sano ka horeeyay dhalashadii Nabi Ciise naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. muddo hadda laga joogo 7,000 oo sano ayaa labada boqortooyo waxa ay ku yaaleen dalalka Masar iyo Suudaan. labada boqortooyo waxa ahaayeen laba boqortooyo oo aad u dagaalama, mararka qaarna heshiiya oo nabadi ka dhex dhacdo. waxaana lagu tilmaamaa labadii boqortooyo ee ugu dheeratay oo ugu jiritaanka dheeraa, kana tegay taariikh la yaab leh oo ilaa iyo hadda bini'aadamku la yaaban yahay. taariikhdii ay ka tageen labada boqortooyo waxa ay ku sharaxeen ahraamtii ay ka tageen iyo dhagxaanta ku taala dalka Masar iyo Suudaan. labada boqortooyo ayaa noloshooda waxa ay ku tiirsanayd webiga Niilka, halkaas oo ay ku faracmeen kuna bateen ilaa ay ka noqdeen qoomiyadihii ugu weynaa ee dunida soo mara. boqortooyada reer Kuush waxaa caasimad u ahayd magaalo la yiraahdo Keema oo ku taala waqooyiga dalka Suudaan, oo ilaa iyo hadda ay degan yihiin qabiilka loo yaqaano Beejada ee afka Kushitiga ku hadla, oo ay afka iyo dhaqanka ay wadaagaan dhammaan dadyowga ku nool bariga Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay. ahraamta waddanka Suudaan ku taala waxa ay 3 jibaar ku soo laabatay ahraamta ku taala waddanka Masar, waxaana dalka laga helay ahraamtii ugu qadiimisaneyd ee abid taariikhda laga helo. reer Kuush waxa ay dhisi jireen ahraam ka duwan ahraamaha kale kuwa kale ee Masaarida oo ay faraacintu dhisi jireen, iyadoo ahraamta reer Kuush badanaaba ay u ekaysiin jireen sida mudulka Afrikaanku iminka isticmaalo, iyadoo dadka Afrikaanku ay ka soo jeedaaneen boqortooyadii reer Kuush iyo nubiyiintii deganaa dalka Suudaan. reer Kuush waxaa lagu yeeri jiray qaansooleydii madmadoobeed, waxaana ay tumi jireen birta iyo sanaacadda. waxaa kaloona ay caan ku ahaayeen doofitaanka xayawaanada sida maroodiga foolkiisa, hargaha iyo waxyaabo badan oo ay samayn jireen, taas oo ay baayac mushtar ahaan u iibgeyn jireen dalka Masar, iyada oo labadaba uu ka dhaxeeyay baayac mushtarka. waa faraacinta iyo boqortooyadii reer Kuush, waxayna ahaayeen kuwo cula marna saaxiiba. faraacintii Masaarida ayaa waxay aad u xiisayn jireen xoolaha iyo dahabka iyo sanaacadda ay gaareen reer Kuush inay iyagu la wareegaan oo xoog ku qabsadaan. 1800 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa boqortooyadii faraacinada ee cusbayd ee faraaciyada Masar ee la oran jiray New Kingdom ayaa waqtiga waxaa madax ka ahaa faraacigii Tootmasaskii koowaad. waxa uu weerar ku soo qaaday reer Kuush, waxaana uu qabsaday magaalo madaxdii ugu horeysay reer Kuush ee la dhihi jiray Marka, waxaana ay bilaaqaysteen dhammaan xoolihii u yaalay reer Kuush. markaa wixii ka dambeeyay reer Kuush waxa ay dib ugu gurteen koonfurta Suudaan, waxaana ay samaysteen magaalo kale oo magaalo madax u noqon doonta oo la oran jiray Nabata. Tootmasaskii koowaad markuu qabsaday magaalada Keema ayuu dadkii uu qabsaday ee reer Suudaanka ahaa ee ka soo jeeday faraacintii madmadoobe ee reer Kuush
ayaa waxa uu ku qasbay inay dhaqanka masaarida ay qaataan, kaasoo sameeyey inuu dhaqankoodii bedelo oo u bedelo dhaqankii masaarida, arhaamihii masaaridana uu keeno bartii si ay u caabudaan, iyagoo markaas wixii ka dameeyey dhammaan cagta mariyey, qariyeyna ahraamtii reer Kuush, iyada oo dhowaan la ogaaday markii la soo qoday dhulku ay ku aaseen in taariikhdii reer Kuush ay boqortooyadii reer Masar ay aaseen, balse waxay ku muujiyeen in boqortooyadii reer Kuush ay ahaayeen addoomo la adoonsan jiray oo aan waxba garanayn, ayay taariikhda halkaa kaga muujiyeen. boqortooyadii faraacinta reer Masar ayaa waxay ahayd boqortooyadii ugu xoogga weyneyd, uguna awoodda badnayd, uguna ilbaxnimada dheerayd ee taariikhda soo marta. boqortooyadii faraacinta masaarida ayaa waxa ay soo bilowdeen xilligii Nebi Ibraahim calayhi salaam, ama muddo ka badan 3,000 oo sano dhalashadii Nebi Ciise calayhi salaam ayaa boqortooyadaasi soo bilaabatay, waxaana ay ku bilaabatay boqortooyooyin u dhisnaa sidii xisbiyadii oo kale, kaasoo xisbi kasta uu haysto boqortooyada uu xukumo inuu xukumo 500 oo sano. boqortooyadii ugu horeysana waxaa la dhahaa Early Dynasty, waxaana ay xukumaysay 500 oo sano, taasoo soo bilaabatay muddo lagu qiyaasayo 3,000 oo sano ka hor dhalashadii Nebi Ciise. haddaba boqortooyadii reer Kuushayte ayaa dib isu abaabulay iyadoo ay ku qaadatay 1,000 sano kadib markii la soo jebiyey dagaalna dhulkoodii lagaga qaaday. boqortooyada reer Kuushayte waxa uu dhashay boqorro badan, balse waxa ugu caansanaa boqorkii Tahara, Penke iyo kuwo kale oo badan. boqorkii Penke ayaa qabsaday waddanka Masar oo weerar dib ugu soo qaaday, isagoo ka qabsaday dhulkii Suudaan ee uu xukumi jiray. isagoo dagaalkii sii wada ayaa waxa uu qabsaday dhulkii Masar oo dhan